fiidyo cusub oo xiiso wata kuna saabsan qiso ka dhex dhacday dagaalkii Shiinaha iyo Vietnam ee 1979. Intii uu socday dagaalku Vietnam iyo Shiinaha ee 1979, waxaa caadi ahaa in cutubyada hubeysan ee haweenka Vietnam ay weerar ku qaadaan ciidamada Shiinaha ee safafka dambe jooga. Waxay ahaayeen kuwo aan naxariis lahayn, balse laba haween oo Vietnam ayaa kasoo horjeeday nidaamkan, waxayna badbaadiyeen nolosha askari cadow ah. Sababta ay u sameeyeen sidani may ahayn ujeedo naxariis ah. Intii dagaalka ka dhacayay Vietnam, Shiinaha wuxuu la kulmay caqabado ku saabsan kaydka shaqaalaha, kheyraadka la abaabulay uu jiray, balse askarta cusub ma ay lahayn xirfado military. Hal bil oo tababara ahi ma aysan ku filnayn in la diyaariyo askar adag. Sidaa darteed, askar aan khibrad lahayn ayaa loo diray doorarka taageerada, halkaas oo ragga da'da yar ay abaabulayeen sahayda agabka iyo kheyraadka farsamada ee xagga hore. Waxay noqdeen bartilmaameedyo fudud oo loogu talagalay cutubyada hubeysan ee haweenka Vietnam. Haweenkaas geesinimada leh waxay weerar ku qaadi jireen xarumaha safafka dambe ee ciidanka, iyagoo baabi'in jiray wax kasta oo kasoo horbaxa: sahay, gargaar bini'aadantinimo, dawo, qalab, rasaas iyo askarba. May reebin cid nool. Waxay xitaa ka daba tegi jireen kuwa hubkooda tuuray oo isku dayay inay cararaan cabsi darteed. Haweenku umay muujin naxariis. Kuwa isku dayay inay isdhiibaan laguma soo tababarin naxariista cadowga, mana ay ahayn qayb ka mid ah xeerka ay ku dhaqmaan. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, dagaalyahanada Vietnam ayaa sameeyay ka reebid, waxayna badbaadiyeen mid ka mid ah ragga ku sugnaa xarun uu Shiinuhu leeyahay. Inkastoo uusan codsan in la badbaadiyo, ninkan geesiga ah waxaa la yidhaahdaa Huang Gansong, oo kasoo jeeda gobolka koonfur bari ee Shiinaha, Yunnan. Xilliga dagaalka wuxuu ahaa 18 jir, wuxuuna iskaa wax u qabso ugu biiray xagga hore. Mas-uuliyadiisu waxay ahayd in uu hagaajiyo qalabka ciidan iyo in uu ambalaasta saaro askarta dhaawacmay. Rasaasta iyo shidaalka. Laba haween oo Vietnam ah oo ka tirsan cutubka gumeysiga ayaa afduubay. Safarku wuu dheer yahay. Huang ayaa isku dayay in uu dhowr jeer baxsado, balse ma uu aqoon deegaanka sida haweenka afduubtay ay u garanayeen. Sidaa darteed, si dhaqso ah ayaa dib loogu qabtay. Si dhaqso ah ay markiiba qabteenba. Waa isagu deegaanka muu garanayno, ma ku baxsaday markiiba la soo qabtay. Dhab kadib dagaalka, Gansong wuxuu hubay in maalinta xigta ay noqon doonto maalinkiisii ugu dambeysay. Sababtoo ah sidaa wuxuu ugu fikrayay uu saxaadee khalaas beri ba arki maysid, wuxuu shirtay way ku dilayaan. Waayo haweenku Vietnam naxariis may aqoono, waxa lagu tababaray inay kaga dhameeyaan. Laakiin haweenka Vietnam waxay lahaayeen qorshayaal kale. Qorshayaal kale baa wateen oo soo socota. Intuu safarku socday, Huang wuxuu ogaaday inay kala soo baxeen guutadoodii. Guutada ay ka tirsanaayeen hablahan magaranaysa dagaalamayay ee Vietnam way ka baxeen. Marka meel dagaalka ka fog bay tageen. Intaaba uu la socday. Inkastoo gacmaha iyo indhihiisu la xiray oo demara lagaga xiray, dhagihiisu waxay ahaayeen qaar fiiqan. Laga soo bilaabo wada hadallada labada haween ee qabsaday isaga soo afduubtay, waxay ku wada hadlayeen, ayuu fahmay inay ka baxsadeen guutadoodii. Haweenka ayaa si dhab ah uga wada hadlayay go'aanka ah inay ku noolaadaan kaynta. Waxaa yeelay dagaalka ayay ka daaleen, waxayna u baahnaayeen Gansong ujeedooyin guur oo labadooda ah. Waxay doorteen Huang maxaa yeelay muuqaalkiisa ayaa aad u soo jiitay. Runtii wuxuu ahaa nin aad u soo jiidasho leh. Ilaa caruurnimadiisii, markuu weynaa, soo jiidashadiisu way sii kordhay. Fanaaniinta Shiinaha ayaa badanaa ku casuumi jiray inay u sawiraan sawirro isaga ah, isagoo si deeqsi ah loogu abaalmariyay doorkiisa qaabaynta. Huang sidoo kale wuxuu caan ku ahaa haweenka, waxayna haweenka jecel kaga soo bixi jireen meel kasta, iyaga oo weydiisanaya inuu guursado. Xitaa markii uu aad u yaraa, muddo dhowr maalmood ah, Gansong wuxuu si qoto dheer ah ugu safrayay kaynta, isaga oo la socday labada haween ee Vietnam ah. Meesha ugu dambeysay ee safarkooda waxay ahayd teendho yar oo lagu dhisay bamboo iyo caleemo, taas oo haweenku dhiseen. Halkaas ayay cunto iyo biyoba ku siiyeen oo u ogolaadeen inuu nasto kadib jidkii dheeraa ee ay soo socdeen. Maalinkii xigtay, si kastaba, Huang wuxuu la kulmay shaqo adag. Sababtoo ah halkaas ayay cunto iyo biyoba ku siiyeen oo u ogolaadeen inuu nasto kadib jidkii dheeraa ee ay soo socdeen.
Maalintii xigtay, si kastaba Huang wuxuu la kulmay shaqo adag. Sababta dhabta ah ee loo qabsaday waxaa laga filayay inuu sariir la wadaago iyaga si mid mid ah. Bilowgii wuxuu isku dayay inuu baxsado isagoo sheegaya in uu u baahan yahay inuu musqusha tago, laakiin ma aqoonin dhulka iyo duurjoogta. Waxaana la kulmay mas sun ah oo qaniinay. Suntan maska waxay keentay in Huang uu miyir beelo. Isla haweenkii Vietnam oo baadhbaadhaya ayaa helay isaga, waxayna isla markiiba siiyeen daryeelka degdega ah. Waxayna mariyeen marooyin iyagoo isaga ka daryeelaya ilaa uu caafimaadkiisii soo noqday. Muddo dhowr maalmood ah, mid ka mid ah haweenka oo la yiraahdo Bing ayaa daryeeshay intii uu soo kabsanayay. Huang wuxuu iyada ugu dhowaaday, wuxuuna bilaabay inuu jacayl u qaado. Ugu dambeyntii wuxuu aqbalay qadarkiisa, waxayna dhowaan Bing ay u dhashay ilmihiisa. Noloshan waxay socotay 13 sano, ilaa maalinkii isagoo ku wareegayay aagga Gansu uu arkay dhalo ay ku qoran tahay xarfo Shiinaha ah. Xarfad dalkiisa barta Shiinayska ay ku qoran tahay ayuu arkay. Wuxuu ogaaday inuusan ka fogeyn xadka, wuxuuna bilaabay inuu intaaba deegaanka barto, taas oo markii qabsashadiisu ayna ka baraarugsanayn qorshihiisa. Iyagoo aan ku baraarugsanayn markaa qorshihiisa, ayuu si qarsoodiya u bilaabay inuu markaa qorshihiisa xagga dambe ka wato oo deegaanka barto, maadaama oo markii ugu horreysay uu isi dhaho baxso lasoo qabtay isagoo masqaniinayo deegaankana aan garanayn. Waxay ku qaadatay dhowr maalmood inuu ka cararo. Wang ayaa ku soo laabtay Shiinaha, taas oo markii qabsashadiisa ayna ku baraarugsanayn qorshihiisa ayuu baxsaday. Iyagoo ku baraarugsanayn buu baxsaday markaa. Waxayna ku qaadatay dhowr maalmood inuu ka cararo. Wang ayaa ku soo laabtay Shiinaha oo ku noqday tuuladiisii, halkaas oo muddo dheer loo malaynayay inuu dhintay. Wuxuu markiiba la bilaabay inuu sheekadiisa la wadaago qoyskiisa iyo booliska. Inkastoo noloshiisa xabsiga u muuqatay sidii wax ciqaab ah, ilaa maalinkiisii u dambeysay wuxuu ka shalaynayay inuu mar dambe arkin ilmihiisii ay u dhashay Bing oo uu si qoto dheer u jeclaaday. Sheekadeenuna intan ayay ku eg tahay daawadayaasheena sharafta badan leh. Waa inoo iyo kulanti dambe. Waxaa sidii wariyaashu dhihi jireen.